Fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Malyun Maanka ayaa waxay ka dhawaajisay in iyaduna dhawaan ka howleeli doonto fanka isagana bixi doonto sabab la xiriira in salaadii Alle Subxaanahu wa Tacaala ay u hagaag weyday. Arrintan ay si weyn u sababaysay inay tahay markii ay fanka ku soo biirtay inay guud ahaanba ay markaasi istaayeen salaadii. Waxay sidoo kale carabka ku dhufatay in intii ay fanka ku jirtay aysan wax macsiya sameyn, balse arrintan ayaa hadalhayn badan dhalisay. Waxay markaasi hadalkeeda u dhigtay in intaan fanka ku jiray wax markaasi macsiya ma sameyn. Dadka qaar iyo sidoo kale culimaduba waxay qabtaa in diinta Islaamka ay ka soo horjeedo arrinta la xiriira in muusig iyo sidoo kale cod la isku laro iyo sidoo kale muuqaalo markaasi aad dadka indhahooda ugu raaxaynaysid in aad haddii aad iska soo duubto ay tahay arrin dambiya. Qoraal ay dhawaan soo dhigtay Instagram-keeda ayaa waxay tiri: markii aan fanka markaasi soo galay waan u toosi waayay habeenkii markaasi salaada cunaha ayaana la qabtaa ee ii duceeya anigu fanka waan ku jiraa wax macsi ana weligay ma sameyn. Arrintan ay uga jeeday in intii ay fanka ku jirtay aysan sameyn waxyaabo markaasi si tarax taga ah. Haddaba arrintan ayaa waxay imanaysaa ka gadaal kadib markii fanaanka caanka ah ee Sharma Boy oo hore ay xaaskiisa ahayd inuu gabi ahaanba fanka iska soo laalaabay oo iskaga howleelay. Waxa uuna YouTube-kiisa ka saaray heesihii ugu daawashada badnaa ee markaasi uu soo geliyay YouTube-kiisa. Guud ahaana waa uu ka dhaliday. Haddaba daawadayaal, arrintan ayaa waxay u muuqataa arrin si weyn in loo amaano ay mudan tahay maadaama ay u soo jeesteen dhankii wanaaga. Fanaanada caanka ah ee Malyun Maanka ayaa waxay u tahriibtay dhankaas iyo Mareykanka, waxayna ka baxday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, waxayna gaadhay magaalada aan idhaahday dalka Colombia iyadoo ka baxday oo martay Panama iyo sidoo kale Ecuador, waxayna halkaasi ka gashay Mexico. Ugu dambeyn waxay ka booday marinka weyn ee bulsho badan oo Soomaalida iyo sidoo kale caalamkuba ay ka boodeen ee xuduudda Mexico iyo sidoo kale Mareykanka. Ugu dambeyn waxay nabad tagtay Minneapolis, Mareykanka. Daawadayaal, wixii akhbaar ah ee ka soo kordha inay fanka guud ahaan iyaduna sidii Sharma Boy oo kale soo gabagabayso iyo inay kusii jirto, wixii akhbaar ah dib ayaan halkan uga soo gelin doonaa. Waxaase baryahanba jiray in fanaaniintii ugu badnaa ee Soomaalidu ay guud ahaanba fanka isaga huleeleen. daawadayaal, anigu waxaan ahay Cabduul Nadaara. Fadlan YouTube-keena Hogol News subscribe noo saara, muuqaalkana sii sheergareeya oo Soomaalida kala gaarsiiya. haddii aad fanaaniin saaxiibad tihiin u sheergaree si ay ugu markaasi qudura qaataan fanaanadan caanka ah ee Malyun Maanka iyo sidoo kale Sharma Boy oo guud ahaan fankiis kaga baxay. waa mahadsantihiin saaxiibayaal. Fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduul Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin. Fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduul Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin. Fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduul Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin. Fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduul Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin. Fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduul Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.